633 badmaax ayaa waxay dhigeen rikoor cusub oo laga diiwaangeliyay buugga dhacdooyinka adduunka ee Guinness World Record kadib markii uu suura gashay inay soo aruuriyaan hal tan oo qashin ah oo badda gunteeda ay ka soo bixiyeen magaalada Devil Beach, Florida ee dalka Mareykanka. Jariirada New York Daily News ee dalka Mareykanka ka soo baxda ayaa sheegtay in badmaaxyadani ay ku qaadatay 2 saacadood oo qura inay soo aruuriyaan qashin ku jiray badda gunteeda meel ku dhow xeebta Devil Beach ee Florida ee laga kaluumaysto. dadkii dhacdada nidaamiyay waxay sheegeen inay tahay markii 15aad oo ay badda gunteeda nadiifiyaan, laakiin ay tahay markii koowaad ee laga diiwaangeliyo rikoorka cusub oo ay ku mitoosteen tirada badmaaxyadani dhacdadan ka qayb galay. garsoore ka tirsan maxkamadda Guinness oo la yiraahdo Michael Emmerich ayaa safar naadir ku gaaray magaalada New York isagoo badmaaxyadani madax ka tiris ku sameeyay 9 subaxnimo ilaa 11 barqanimo. garsoorahan oo hadlay waxa uu yiri, halkan aniga ayaa istaagay, dadka oo dhan aniga ayaa si qaas ah u tiriyay markii ay biyaha galayeen. badmaaxyadu badda ayay gudaha u galeen, halkaas ayayna ku sugnaayeen muddo 15 daqiiqo ah ugu yaraan, waxaana ka mid ah Dahli Bolin oo 13 jir ah. iyada iyo hooyadeed ayaa ka mid ahaa badmaaxyada maadaama ay doonayeen inay ka qayb qaataan rikoorkan cusub ee la jibiyay.